baraaruga dadkaygaanidha boqol kun oo jeere baaq waxaan u dirayaa dhammaan beelaadaadini soo dhawaada saaxiibayaal waa mar kale iyo muuqaal kale oo aad u xiiso badan gabadha waxa la jannada ninkeeda u haya gabdhow raggii la raaliyo noqda waxaan leeyahay kulligiin ehlu janno noqda raaliyooyin noqda waxaa lidii helaa daawadayaal muuqaal kale oo xiiso badan kaasiyo noloshaadii caafimaadkaaga buu kafaala qaatay raaxadaadii buu kafaala qaatay wuxuu kugu daray ilaahay janno way sababaad muxuu ahaaye u samaynaysaa inaad markaa intaad dardhaafto isku taagto isagoo kulloo shaqo ka yimi su'aal qabri keento xagaad ka timi xagaad u socotay maxaad samaynaysaa iyo muuqaalkan dumar fara badan waxa uu noqon doonaa mid markaa waxtar leh oo ku jiheeya jidka khayrka ee wanaagsan waxaana uu noqon doonaa mid manaafaco badan u yeesha bulshadeena gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed muuqaalkan aan meel sare gaarsiino si uu manaafaco ugu yeesho dumar fara badan oo Soomaaliyeed isla markaana anagu aan uga helno ajar iyo xasanaad fara badan gabadha waxa la jannada ninkeeda u haya beeda Soomaaliyeed waxay ka hadlaysaa mawduuc aad muhiim u ah waana hubaal haddii dardaaranka cajiibka ah ee hooyada Soomaaliyeed ay qaataan dumarkeenu in markaa wax badan uu ku bedeli doono habdhaqanka iyo sidoo kale noloshu gabdho fara badan oo Soomaaliyeed iyaga oo markaa u jihaysan doona dhinaca wanaagsan ee khayrka haddii lagu yiri janna baad ku galaysaa way cadaab ugu ordaysaa adigu oo lagu sheegay haddaad ninkaaga khilaafta cadaab baad ku dhacaysaa madanka wanaagsan ee jannada adigu muxuu ahaay aakhiradaada u turatido adduun iyo aakhira badan muuqaalkan aan wada daawadayaal si markaa aynu wax badan uga faa'iideysano dardaaranka cajiibka ah ee hooyada Soomaaliyeed isla markaana ay bulshadeenu ugu noqoto mid manaafaco iyo waxtar u leh gabadha waxa la jannada ninkeeda u haya sababta ugu haya waxa weeye intiraam inay dhageysato inay maqasho inay maxaan ka tala qaadato inay u raariciso dhigaheeda inay isaga raali geliso haddii lagu yiri janna baad ku galaysaa way cadaab ugu ordaysaa adigu oo lagu sheegay haddaad ninkaaga khilaafta cadaab baad ku dhacaysaa madanka wanaagsan ee jannada adigu muxuu ahaay aakhiradaada u turatido adduun iyo aakhira badan wanaaga aad marka gabdhaha waxaan leeyahay kulligiin ehlu janno noqda raaliyooyin noqda haddaad raaliyo noqoto wax badan baa kugu qabsoomaya oo ragga adeecdaan ninkaaga haddaad adeecdo fiiriya aabaha waad ka timi hooyada waad ka timi gurigiina waad ka timi noloshii nin baad la qaybsatay jannaad ku gashay caafimaad baad ku gashay hubaad ku gashay karaamaad ku gashay sharaf baad ku gashay intaasoo darajo ilaahay kaa siiyay ninka agtiisii awlaad buu kaa siiyay irsaaqad buu kaa siiyay noloshaadii caafimaadkaaga buu kafaala qaatay raaxadaadii buu kafaala qaatay wuxuu kugu daray ilaahay janno way sababaad muxuu ahaaye u samaynaysaa inaad markaa intaad dardhaafto isku taagto isagoo kulloo shaqo ka yimi su'aal qabri keento xagaad ka timi xagaad u socotay maxaad samaynaysaa iyo yeeli maayo iyo ina su'aalaha bilowdo soo kama qurux badnayn aad habsiiso ka hor tagto raali geliso biyo qabow cagaa u geliso madaxa ka dhunkanto isaga aad raali geliso soo kama qurux badnaa janno dalaq u tiraado subaxa waa hagaag daawadayaal wixii aragti ama comment ah ee ku saabsan muuqaalkan waxaad inoogu reebi kartaa qaybta hoose ee faallada ama commentiska baraaruga dadkaygaanidha boqol kun oo jeere baaq waxaan u dirayaa dhammaan beelaadaadini